isha Israa'iil ileen iyagay ahayd waxa soo baxaya ama soo xoogaysanaya in dalalka qaliijku ahaayeen isha ilaalisa Israa'iil gaashaan aan laga gudbi karin bal xogtaan hooya cabsida ay ka qabtay Israa'iil dagaal ay la gasho Xisbullaahida Lubnaan way ka adkeed midda Iiraan ugana walwal badnayd taasoo ku xiran habka digniinta gantaalada oo kala duwan aan ku sababeeyo gantaalada ama weerarada ka yimaada Xisbullah ma aha kuwa u baahan waqti dheer si ay u soo gaaraan Israa'iil ama kuwa laga tabaabushaysan karo si loogu ordo godadka gantaalada laga galo waana sababtay u diidaysay una dhibsanaysay aysan ugu dulqaadan karin furanta Xisbullah haddase furantay cid kastoo ila hadli kartay way la hadashay wadaxaajood iyo handadaadba sida dawladda Lubnaan iyadoo u maraysa Mareykanka oo aad xoojinaysa inaysan Xisbullah dagaal ka soo galin raadaarada Israa'iil ee qaliijka mar walba Iiraan gantaal soo tuurto si ka duwan kuwa Lubnaan waxa looga digi jiray dadka Israa'iil taasi oo fududeyn jirtay inay godadka galaan sida uu sheegay sargaal saro Iiraan qoraal militariga hore ayay u tuhunsanayeen saldhigyada Mareykanka ee dhanka galbeed iyo waqooyi galbeed kaga teedsan Iiraan ee ku yaala dalalka Ciraaq, Kuwait, Bahrayn, Qatar iyo Imaaraadka ayaa u diri jiray dhambaalo raadaar oo tibinaya dhaqdhaqaaqa gantaalada Iiraan dhabar weyne waa la dhogortiray kadib burburkii xoogganaa ee gaaray saldhigyadii gobolka ee Mareykanka Israa'iil waxa isugu mid noqon doona gantaalada ka imaanaya Iiraan iyo kuwa Lubnaan raggii dhogorta ilaalisa u ahaa Israa'iil iyagoo dharla ayaa dabaqadii dhalaalayay maalinba mid dhinac looga dumin warkoo kooban wax walba sidii la mooday ma noqon carabna cid lay afka leerinaysa waxa hadda soo baxaya in dalalka qaliijku ay si hoose ula xiriirayaan militariga dalka Iiraan iyagoo ka codsanaya in loo maciino oo gantaalada laga joojiyo sida ay qorayaan qaar ka mid ah warbaahinta reer galbeedka gaar ahaan kuwa Sacuudiga iyo Imaaraadka oo indhahooda ku arkay burbur xooggan oo soo gaaray saldhigyada Mareykanka iyo ceelalkoodii shidaalka oo gubanaya taasi oo meesha ka saaraysa inay gabbaad u noqdaan Yuhuudda oo iyagii ayba hadda ka maraysaa ibixi allahayo lama sahube tanaygaho si lamida siday qaliijku u dirayeen tilmaamaha raadaarka gantaalada si dadka Israa'iil ay u galaan gabbaadka xogo waxaa jira sheegaya in gantaalada xuutiyiinta laftirkooda laga tabin jiray foolasha waqooyi ee dhulka Soomaalida oo gantaalka Yaman laga ridaa intuusan dhulka Yaman ka dhammaan laga ogaan jiray Israa'iil oo digniinuhu ka dhex daarmi jireen shinni aragtaa malab aragtee Mareykan aragtaa Yahuud aragtee لقد بعيد خلودي